بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. mar kale nicamka ilaahay subxaana watacaala uu fara badan yahay. nicmadaasna waxaan ku sheegnay fadhigii hore in ilaahay subxaana watacaala xisaab qof walba ay sugayso. waxaanan ku siiyey maxaad iiga mahad celisay oo aad ku amaalgud, maxaa yeelay cibaadaadka aad ku sameynaysid waqtiga iyo caafimaadka ilaahay ku siiyey, caafimaadkan allah iska leh, cibaadadaasna allah kuu dirsaday, ayadaana aad wax uga rabtaa allah wax kugu siina. nicamkiisiyaad ku shaqaysatay, nicmo kaloo kugu daray. marka si aan marka qofku uu u ilaashado dhalinyarada maanta dhalinyarinimada haysta, firaaqadeedana haysta, iyo inta caafimaadka qabta maanta firaaqadu siima jiri doonto, caafimaadkuna walayaal siima jiri doono. ama adoo nool u tegi doonaa, ama nolosha aduu la tegi raaci doonaa. wax walbaana waad aragteen inay sii yaraanayaan, kulamaad maalin aada noolaato way sii yaraan doonaa. marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu naga weydiin doonaa nicamkaa uu bixiyey addoommada uu siiyo. waxaa nabi sal xadiis ku leeyahay qiyaamo markii la tago laa tasuulu qadamaa cabdin xataa yus'ala can cumrihi fi ma abnah. yacni addoomka meesha uu taagan yahay kama kici doono, oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam, ilaa laga weydiiyo cumrigiisa fi ma afnah. cumriga maantay nimaa yiriyaa la yidhi markaan tala haayana, markaan tabar haayay tala mahayn, maantoo tala aan maarata tala hayana tabar mahay. inta goor tahay dhalinyaroy, qofkii waqtigiisa uu hore u marana inta u dhiman ha ka faa-ideyso. ilaahay subxana wataala dib ha xasuusto oo dib ha u fakaro. qofka maanta dhalinyarnimo haysta, qof dumara, qof raga, nin iyo naagba wixii maantay haysta dhalinyarnimo hayo oo dhalinyar, waqtigaaga aada haysato haddaad si saxa u maalgashato, wax aad ku haminayso oo adduunyo nadiifa ah, iyo waxa aad ku haminayso oo ah darajaad sare iyo meelo sare inaad ilaahay agtiisa ka gaarto, intaba gacantaadi ku jiraan. ilaahay kaalmihiisa ka gadaal waxay ku xiran tahay go-aankaaga aada qaadato. in waxaa la geeyo 2 jirka waa soo maray, hadaad aragto maaragtay hal weyn hadaad aragto maaragtay qaalin yar ay ahaa jirtay, islaan weyn hadaad aragto oo maaragtay aqoon badan oo maaragtay waxa weeye khayr badan, ama nin maaragtay aqoon badan oo khayr badan oo maaragtay waxqabad badan oo bulshada waxtar hadaad aragto, way soo mareen. waqtiga hadda adigu aada haysato kalea lasoo maray. waqtigaasa ilaahay waafajiyey inay ka faa-ideystaan oo si saxa u maalgashadaan. markaasa natiijada waxay noqotay in sidan ay noqdaan. ma jiraan wax oo qof yani wax qofka lagu duro oo qof iska noqonaya ma jiro. yani samadu dahab ma roobayso, dahab iskama soo daato. adduunka doolarka iyo dirhamka yaalla dadaaluu ku yimid. waxa weeye haddaad kala sareynta dadku ay ku kala sareeyo oo ay qur-aanku kala sareeyaan oo cilmiga ku kala sareeyaan oo dadka u kala nafci badan yihiin, maxaa weeye waafajinta ilaahay ka gadaal dadaaluu ku yimid. wax meel cidlaa ka imaanaya ma jiraan. qofka waqtigiisa meel cidlaa iskaga dhameeya, sheeka iyo waxaa weeye maaragtay mobile iyo bare bulsho iyo macna darra iskaga dhameeya, bulshada unbuu maaragtay waa qof nool, xayawaanka nool uu ka mid yahay. xisaabta xayawaanka nool uu ku dirsan yahay, laakiin xisaabta xayawaanka waxgalka ah ama maaragtay nafta bini aadamka qiimaha leh ee duniyada ka xusan, adduunyada maaragtay aakhiradaba tirada saxda ka gasha kama tirsana. laakiin noolaha adduunyada nafta ku jirta waa lagugu tirina, laakiin waxaa la qiimeeyo oo dadka u xisaaban oo faraha lagu tiriyo oo kor loo fiiriyo oo mar walba la hadal haayo kuma tirsanaan. maxaa yeele dee qof walba yani waxaa la jirta markii qur-aanka aan dhigan dhihi jiray dadka oo maaragtay ardayga dugsiga iska jooga oo mar walba dugsiga jooga oo kitaabka haysta, iyo ardayga maqana jooga oo marna yimaada marna maqan. waxaa la dhihi jiray jooga jil qaata la dhihi jiray, joogi jil qaata. qof marku waxaan haayo oo lagula dadaalayo oo fursada ay jirto oo caafimaad ku jiro, firaaqadu jirto, marka adiga aada go-aankaas ilaahay ku fahamsiiyo, yani muddo kadib waa la soconaya, waa la weynaanaya. 5 sano kadib, 4 sano kadib waxaad noqonaysaa dad qof jira aad noqonaysaa, bulshada qeyb
uga aadan oo cilmi loo soo doonto oo aqoon loo soo doonto ha noqoto aqoon maaragtay farsamo ha noqoto ama mid cilmi sharciga ha noqoto ama wax lagu soo doonto ha noqonaysa. laakiin inaad iska cunto iska nooshahay oo sida ariguba xerada uga soo baxo aada xero kasoo baxday haddana aada gasho bani aadam sidaas waa ka duwan yahi. bani aadam waxaa ugu talagala markuu asagu uu ka baxo caruurnimada inuu bulshada dhinac ka biiriyo, dhinac fiican inuu uga aado, xumaan inuu maarata albaab xumaan xiro, albaab daaca uu furo, dadku usoo aadaan horumar adduunyo oo daacad loo kaalmaysto iyo mid daaca rasmiya oo toosa intaba uga faaidayso. waxaa kaloo la weydiinayaa qofka cilmigiisa fii maa facala, in marka cilmiga haduu cilmi ilaahay siiye muxuu ku sameeyey, hadduu weynaaday cilmi muxuu bara waaya laftirkeeda, wixii ilaahay subxana watacala kuu diray oo alla uu kaa rabo aqoon daro lagagama rabo oo inaad ilaahay subxana watacala ku caabuda calaa cilmi laga raba. qofka weyna laga raba qof walba inuu inta miirkiisu joogo, aqoonsiisu joogto, caafimaadkiisu joogo, inuu adaad isla daranta waa lagaa daran yahay yaa inaad wax un kororsato wixii aad taqaana ilaahay subxana watacaala maaragtay uu ku barana aad ku dhaqanto. sidoo kale maalka hadii ilaahay ku siiyo inaad meel fiican maalkii meeshaad aad ka shaqaysay waa su-aasha way qusaysaa, meesha lagu bixinayana way qusaysaa. dad badan maantay xoola ayagoo haayo ayaysan haddana u kala abyeelin, xoolaha ay hayaan meesha kasoo keenayna iyadana waxba kama quseeyaan. waxa dadku leeyahay iyo waxa dadweynuhu leeyahay iyo waxa dadku isla leeyihiin iyo waxa kale uma kala socno. waxaan marka adduunyada adigu aad ka tegaysaa, dadaad uga tegaysaa, wax fiican haddaysan ahayn culeysku adigu ku yaalla. wixii dheeftoodiina dad kala qaatay, dhibkooduna adigu ku yaalla, dhibkooda adigu ku yaalla. marka wacan jismihi fima ablah, wacan hadiiska abu barza alaslami wuxuu leeyahay yani wacan jismihi fima ablah, jirkan duqoobay ee dhalinyarnimada soo maray ee waqtiga maanta la joogo yani gaboobay, wixii aada sidaan ugu dhamaysana waa lagaa rabo. haddii aad daacad ilaahay subxana watacaala aada ka shaqaysay, jirkaas waxay u badan tahay ilahay inuu ku ilaaliyo asagoo adduunyada jooga inuu ka qiimo bato oo ka caafimaad badan yahay jirka ku fac ah oo kale oo aan daacada ka shaqayn oo intaa jirtoo kale joogay. haddii taas aan lagu siin lagu imtixaanana su-aasha aakhirada ayaa ka badbaadaysaa. jismiga fima ablah, qofku waxa jirkiisa wax uu ku baaliyey. dadka maanta marka macaasida ku maman, cayaartii waqtilumiska ku maman, dhididku maarata uu ka baxayo, dhiigooda dhacaankooda uu qumayo oo wax ilaahay agtiisana qiimo aan ka lahayn, dadka iyo bulshada iyo wadankana aan qiimo u lahayn waqtigooda ku bixina, laa shaka inay waqtigeeda ka shalaayi doonaan, inay ka qoomo doonaan waqtiga ay bixiyeen iyo meesha ay ku bixiyeen iyo wax jirkooda ay ku dhameeyeen, way ka qoomay doonaan. marka inta goor tahay iswaanso, dib usoo noqo, ilaahay subxaana watacaala hodankaa ka maaragtay ka hodanso waxa aad gacanta ku hayso oo aan maaragtay aan wax macnaha adiga kugu soo kordhinayn, bal noloshaada baaba ku ah, aakhiradaada baabi-inaya. noloshu waa daqaa'iq xisaaban, adigu in yaraad ku leedahay, inta adigu aad ku leedahay laguma sheegin, waa wax kaa qarsoon. waxaa kaa qarsoon wixii aad adiga kaa soo baxaana maaragta lagu xukmi doono, lagu maxkamaday doono. ilaahay subxana watacaala qofna yacni qof kale wixii uusan lahayn oo wanaagsan, qof wanaag aan samaysan wanaag dee ma la kulmayo. qofkii xumaan samaystana wanaag la kulmamaayo, qofkii wanaag sameeyana xumaan ma la kulmaayo oo laguma amaalmarinayo. qof aljazaau min jinsi alcamal, shaqada aada hayso iyo amaalmarkaaga isleh, wanaag iyo wanaag, xumaan iyo xumaan, xalaa shaqadaada sida ahayd. markaa la rabaa qof walba inuu hortiisa soo dhigo su-aalahan maxaa iga diyaarsan oo waqtigaaga maanta inta yacni dadka wax kuu sheegaya maad la socoto ama kuu sheekeynaya, inaad ogaato ma dad aakhira kuu dhaweynaya, dad aakhira kaa fogeyna, ma tala aakhira dad bixinaya, sa tala adduunya bixina. adduunya bixina laftirkooda adduunyo faa-iide lamiah, isagoo adduunyo aan faa-iide lahayn
oo maaragtay ii sheeg ku dhammaanaysa wax aan macno darro ah ay hawsh ay shaqadaadu ay ku dhammaanayso, jirkaaga ku dhammaana, oo caafimaadkaaga ku dhammaana, oo waqtigaa ku dhammaanaya. marka aada iyo aada dhalinyarta gaar ahaan dadka ilaahay subxana wa tacaala nicamkan ilaahay uu siiyey, dadka ugu badan oo caafimaadka haysta firaaqadana haysta waa dhalinyarada. dhalinyaraduna dee waxaa laga yaabaa dee 15 jir kaliya ma ahan, ilaa qofka 40 jooga waxaa laga yaabaa inuu dhalinyaro xisaaban yahay, hadii la caafimaad siiyo inuu dhalinyaro xisaaban yahay. marka aada iyo aad waxaan aada dhalinyarada waqtiga aada u baabi'isa, iskooleyda cayaaraha ku baabi'isa, dhalinyarada ah soo jeedka ku baabi'iya, waqtiga ku dila, inay aada iyo aada uga faa'iidaystaan waqtigiina, wakhaasatan bisha ramadaan ee soo socota ee hadda maalmo kadib aan geli doono, in aad aada uga faa'iidaysataan oo aada ogaataan inaad cadow leedihiin, mar walba yaqaana qaabka dadka loo dhakro, qiimaha waqtiga uu leeyahay sida loo dhaafiyo, inaad leedahay naftaada ugu horeysa. shayaadiin insiya maaragtay waxa weeye maaragtay oo aada u tababaray ibliiska weyn ayaa ka mid ah, kuwaasoo dhan waxay ogyihiin furaska jira iyo waqtiga qiimaha uu leeyahay way ogyihiin, caafimaadka qiimaha leeyahay ogyihiin, firaaqada ay leeyihiin waxay kusoo beegayaan wax firaaqadana maaragtay ka baabi'iya, ama caafimaadkaaga aan sabab u noqda inuu tago, ama iyadoo caafimaadkaada haysta firaaqadaadina haysta uusan noqon, labadaas cunsur aysan noqon laba cunsur oo si saxa aada uga faa'iidaysato oo ilaahay subxana wa tacaala aada ku raaligeliso, ay noqdaan laba cunsur oo jaaniska jirana ku dhaafisa, aada ku dhaafto ilaahayna subxaana wa tacaala uu kugu qoro liiska dadka xunxun ee nasiib darrada ku dhacday inaad ka mid noqotay ka shaqeynayaan. marka iska ilaali in waqtigaaga lagu dhaafiyo, ha u kaalmaynin naftaada, cadowgaaga ha u kaalmaynin, oo ha ugu kaalmaynin naftaadu inay baaba-do, aakhiradan aad seegto berri waqti yar kadib inta yarta ha la ekaato, kaliga aad gudgeli doontaa, kaliga aad lagaga soo tegi doonaa, kaliga aad qiyaamas imaan doontaa, kaliga lagu xisaabi doonaa. waxaad leedahay wax kale cidna kugu darima, waxaadan lahayn lagu siima, wax aadan lahayn oo dembigan lagu saarima, waxaad leedahay xasanaadana lagaa lumi maayo. laakiin haddana ogow wax layska helo waa iska helayso oo xagga iskaga diyaarsanna ma jiraan. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.